السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري وفاضمة علمي وإذن له هبين وناكسن ملك استوى با waxaynu markan kaga hadli doonaa podcast amuun magaalada Hargeysa habeen hore 19 bishii 12aad 2024 ayaa waxa ka dhacday dacdo aad u xanuun badan magaalada Hargeysa sida caadada ahayd waa magaalo nabad ah oo nabad lagu yaqaanay oo nabad ay haystaan ayna wadamo badan haysanin marka runta iyo xaqiiqda laga hadlo magaalada Hargeysa waa meesha kaliya iyada oo dawlad cidi aqoonsan tahay aanay ahayn caalamku aanu aqoonsanayn haddana iyadu nabadeeda aad iyo aad ugu wanaagsan xagga nabadda aad iyo aad bay ugu wanaagsan tahay hasaatee habeen hore dhacdo xun baa ka dhacday dhacdadaasi waxay ahaayeen wiil iyo gabadh dhalinyar ah wiil iyo gabadhan dhalinyarta ah waxay markaasi ku jireen baabuur yar oo baabuurka raaxada ah dabadeed waxay ka mid ahaayeen labaduba shaqaale ka tirsan sida markaasi lagu sheegay baraha bulshada waxay ka mid ahaayeen laba qof oo ka shaqeeya markaasi qaybta ilaalada madaxtooyada wiilka magaciisu yahay Xamse Axmed Yuusuf iyo waliba Huda Sheekh Axmed Faarax ayay kala hay labada magac labada marxuun ee geeriyooday Allah u naxariisto ayaan leenahay marka hore dhacdadani marka la miisaamay dadka wax garadka ah iyo dadka markaasi wax faaleeya tilmaanta inta badan dadku tilmaamayaan laba qof oo wax calaamad ayna ku oolin oo gaari ku dhex jira oo wax nabura oo laga helay aanu jirin haddana labadii qof oo mid waliba kursigiisi ku engegay ayaa markaasi la arkay booliska markaasi magaalada Hargeysa ayaa ku hawlan sidii ay markaasi uga midhodhalin lahaayeen arrintani iyo sida ay ku dhacday baaritaan adag ayaa lagu jira wiilka iyo gabadhu laba qof oo aqoon isku leh oo meel ka wada shaqeeya ayay haayeen dhacdadani sidii ay ku dhacday la hadda wax sheegaya ama wax la leeyahay sidaas ay ku dhacday wali maynaan maqal laakiin haddana baaritaanka lagu jiro ayaynu ku ogaan doonaa wiilkiiyo gabadhu gaadhigay ku dhex jireen dabadeedna waxa dhacday in la ogaaday amaba la arkay iyagoo meyda qiyaas ahaantii bal dadku maxay ku faaleynayaan dadka wax faaleeya wax garadkii maxay qiyaasayaan inta badan dadku waxay qiyaasayaan labadan qof ma waxa lagu dilay in markaasi naqaska lagu dhajiyay dadka qaar waxay leeyihiin ma la ciijiyay oo dadka ciijin baa lagu dilay dadba waxbay sheegayaan laakiin sida anigu aan diiradda saarayo amaba aan fikradaydan ku tilmaamayo waxay noqonaysaa labadan qof waxa dhici karta in meel aan gaadhigan ahayn lagu soo dilay gaadhiga dhexdiisa in lagu dilo uma malaynayo sababtoo ah gaadhiga dhexdiisa haddii lagu dilo labada qof amaba sun la siiyo way nafxaraarada qofba kursiga uu ka kici lahaa oo qofku kursiga uun kuma taagnaadeen qofku haddii sun wax lagu siiyo waxa dhici karta inuu daaqadaba iska furo nafxaraarada way qofku markuu sumaysan yahay uu cararaa dhinacuun buu ordaa naftuna waxa la yiraahdaa orod bay kugu aamintaa labadan qof haddii ay dhacdo in la ciijiyo waxa suurtagal ahaan lahayd in laga heli lahaa calaamado oo qoorta haddii wax lagaga qabto laakiin sida anigu aan qiyaasay oo markaasi qiyaas ahaan aan u tilmaamay labadan qof meel aan gaadhiga ahayn ayaa markii hore lagu soo dilay qaabka loo dilay markaan u fiirsado in naqaska lagu xiray ayuunba u dhowdahay dabadeed naqaska marka lagu xiray haddana gaadhigoogii iyagoo meyda lagu soo celiyey waa sida anigu aan qiyaasayaan isleeyahay labada qof gaadhiga meel aan ahayn ayay naftu kaga baxday akhyaaray waxaa la sheegay gabadhu xataa inay uur lahayd oo uur 9 bilood ah ayay lahayd inay reer lahaydba markaasi
aynu arkaynaa amaba aynu dheehanaynaa sida ay dadku sheegayaan. Allah u naxariisto akhyaaray labada qof waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay markaasi xaqooga u soo dhiciyo oo dadkii dilay uu soo muujiyo. akhyaaray barnaamijkani markaaynu ku guda jirno waxaan ku soo gabagabaynaa hal su'aala. su-aashaasi oo toddobaadkii hore ahayd wax hortaada socda oo aanad arkaynin. dadku inta badan akhyaarteedu kamay soo jawaabin, laakiin su-aashii xigtay ayaa waxay ahayd waxaad sheegtaa asxaabigii u dambeeyey asxaabtii nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam magaciisa. waa anas bin malik. anas bin malik ayaa u dambeeyey oo geeriyooda asxaabtii nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam. su-aasha markaan idiin soo dhigno 200 oo bir oo kaar ah ayaad ugu leedihiin akhyaare. su-aashaasi intaaynu kaga nimaadna jawaabtii waynu sheegnay. su-aasha hadda aan soo qabanayo waxay ku leedahay waxaad sheegtaa wax aan idhaahde qof kula dhashay oo aan walaalka ahayn. waa qof hooyada iyo aabaha dhaleen haddana walaalkaa maaha. qofkaasi hooyada iyo aabaha dhaleen ee aan walaalka ahayn yuu noqonaya. akhyaaray kolleyba wixii aan idinka baahnaa ama baad igu caawinayseen haddii la idhaahdo sheerta, liketa, subscribeta, commentiga oo ad iigu soo gudbinaysaan afkaartaadii haysaan, su-aashana aad kaga jawaabaysaan. waxaan leeyahay barnaamijkan barnaamijka xiga intaynu ku kulmayno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.